السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kusoo dhawaada mid kamid ah casharadii ku saabsanaa barashada luqadda Ingiriisiga. Casharkan waa conversation 10 ama wada sheekaysigii 10aad. Waxa uu ku bilaabanayaa sida tan: A iyo B ayaa sheekaysanaya. Waxa hadalka bilaabay A. Wuxuu yiri, do you have any plans tonight? Wax qorshooyin ma leedahay caawa? Do you have ma leedahay any plans? wax qorshooyin plans waxa la yiraahdaa qorshooyin. Eriga plan waa qorshe, plans waa qorshooyin, marka waa jama. Do you have any plans tonight? Caawa wax qorshooyin ma leedahay marka. I have a class until 5 o'clock. Waxaan leeyahay class ama fasal ayaan leeyahay until inta laga gaarayo marka, until inta laga gaarayo 5 o'clock shanta saac marka inta laga gaarayo marka. O'clock waxa la yiraahdaa waa iyadana waa saacad, 5 na waa shanta marka. saacada shanta inta laga gaarayo waxaan leeyahay class marka, but laakiin I'm free after that. inta kadib waxaan ahay qof free ah marka, ama qof firaaqo ah, ama qof aan waxba qabanaynin ayaan ahay marka. Eriga free waxa dhaanay waa firaaqo. I'm free after that. arinta kadib ama taa kadib waxaan ahay qof free ah. Do you want to grab a dinner? Do you want to grab a dinner? marka waxa la yiri, do you want ma doonaysaa to grab inaan soo gadano ama soo cunno dinner casho marka. To grab waxa dhaanay eriga to grab waxa weeye waa cunto soo gadasho. sidoo kale waxay noqon kartaa inaad cunto soo gadatid oo banaanka ku cuntid ama inaad soo qaadatid. labadaba waa loo fasiri karaa, laakiin waxaan ku soo koobaynaa macnaheeda to grab inaad cunto soo gadatid marka. I don't have any dinner plans. wax ma haysto marka qorshooyin casho ama haysto ama ma lihi. so sidaa darteed that sounds great. arintaasi waxay u muuqataa marka mid wanaagsan ayay u muuqataa marka. wuxuu yiri, dude, what time should we meet? what time should we meet? waqtigee ayaan kulmaynaa marka. what time should we meet? I need to go to the bookstore first. waxaan doonayaa marka ugu horeysa inaan aado bookstore. waxaa la yiraahdaa dukaanka lagu iibiyo buugaagta ayaa la yiraahdaa, laakiin ereyga store marka laga hadlayo waa bakhaar marka, laakiin hadda waxay ugu jirtaa marka la isku qabto waxay ugu jirtaa bookstore. waxaa la yiraahdaa marka hadda waxay ugu jirtaa waa goobta lagu iibiyo buugaagta ayaa la yiraahdaa marka. soo sidaa darteed let's meet. sidaa darteed aan kulanno at the 6 o'clock. lixda marka ay tahay saacadu aan kulanno marka. at 6 o'clock lixda markay saacadu ay tahay aan kulanno marka. keywordska ama erayaashii ugu muhiimsanaa waxaa plans waa qorshooyin, ama marka aad leedahay wax qorsho ah ayaa la yiraahdaa plans. waa hadda waa jamac. ereyga plan ayaa ah qorsho. free waxaan ahay waa marka aad leedahay firaaqo ayaa la dhihi karaa. free, I'm free ayaa leedahay, waxaan ahay qof firaaqo ah. to grab waxa dhaanay waa cunto inaad soo gadato oo banaanka ku soo cunto ama inaad soo qaadato. to grab, eriga to grab soo kale waxa loo isticmaali karaa wax soo qaadashona waa loo isticmaali karaa marka. dinner waxa dhaanay waa casho, cuntadii ama cuntada la cuno habeenkii ayaa la yiraahdaa dinner. meet waxa dhaanay waa kulan marka, ama la kulmid. eriga to meet haday noqoto waa la kulmid, meetna waa kulan marka. marka casharkii halkaas ayaan kusoo gabagabeynayaa. intaan cashar kale ku kulmi doono waxaan idinkaga tegay sidaas iyo nabadgelyo. fadlan haddii aad ka heshay kanaalkeena ku xirna oo subscribe dheh, sidoo kale like iyo share waa dhankaada insha Allah.